qaar ka mid ah mas'uuliyiinta caafimaadka iyo barasaabka gobolka Sal ayaa waxa ay saaka subaxnimadii hore si toos ah uga dhaqaajiyeen talaalka xanuunka jadeecada isla markaasna loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 21,000 oo caruur oo ku kala nool deegaanada hoos yimaada degmada Sayla. mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo barasaabka gobolka Sal ayaa waxa iyagu ay guud ahaanba ugu baaqeen dadka ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Sayla inay ka faa'iideystaan fursadan looga hortagayo xanuunka jadeecada isla markaasna loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 21,000 oo ku kala nool deegaanada hoos yimaada degmada Sayla. ugu horeyntina waxa isagu halkaasi daahfur isla markaasna ka hadlay uguna baaqay dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Sayla inay ka faa'iideystaan talaalkan loogu talagalay in lagu la dagaalamo xanuunka cudurka jadeecada. barasaabka gobolka Sal isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri jadeecada ee gobolka Sal ka bilaabmay maanta bisha tahay 20 kuna eega 24 bisha waxa la talaali doona 21,000 kun oo caruur ah oo ay daadoodu tahay 9 sano bilood ilaa 9 sano. waxaan leeyahay guud ahaan dadweynaha gobolka Sal fursadda ka faa'iideeya maadaama in xaaladaada ku jirno abaar ah in waqtiga fiican in helay talaalka in laga faa'iideeyo ayaan guud ahaan ku go'aaminaya dhammaan bulshada gobolka Sal siday u dhameystiran yihiin insha Allah bidmillaahi kariim waxa filayaa timeka in la ilaalin doono qolada talaalkana insha Allah waxa filayaa in hawl fiican oo gobolka tiradaas dhameystiranta ka qaban doona. Assalaamu calaykum. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sal Yuusuf Cawaalo Daahir isagoona ugu baaqay dhammaan dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Sayla inay kala shaqeeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunka jadeecada isla markaasna loogu talagalay in laga talaalo xanuunka jadeecada 21,000 oo caruur. ilaahay baa mahadle sidoo wada joogteen waxay noo bilaabeen talaalkii oo hadda iclaaminaya gudoomiyaha gobolka Sal waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida wanaagsan oo noogu bilaabmay inuu si lamid ah noogu dhamaado. talabaadna waxaan rajo weyn ka qabaa oo ilaahay ka rajaynayaa ilaahayna ka rajaynayaa inuu nagaarsiyo targetka aanu rabno in la gaaro. وماتسيه isduwaha gobolka Yusuf maanta halka waxaan u nimidnay talaalka cudurka jadeecada measles campaign oo ka bilaabmay gobolka Sal dhammaan waxa weeyaan min Sayla ilaa tuulooyinka ilaa meel kasta ilaa baadiyaha fog loo baxayo. waxaan rajaynaynaa in meel kasta oo caruur joogto caruurta u dhaxaysa 9 bilood ilaa 9 sano in la wada gaaro maadaama ay jirto dilaac cudurka jadeecada oo dalka dhan laga arkay maadaama ay jirto dadweynaha waxaan ku baraarujinaynaa inay ka faa'iideystaan kooxaha talaalka wada goob kasta ay ku arkaan inay soo dhaweeyaan. وعلي أحمد ديري علي دقدلول وررك أريال TV مقالة Sayla.